xamdi waxay qaadaysaa dhiigana waxay ka qaadaysaa bukaan haysta cagaarshow nooca B, hepatitis B. si kadis ah ayay cirbadii gacanta ugu gashay. Xamdi waxaa ku dhacay fayraska. 65 maalmood kadib waxaa lagu arkay astaamo sida qandho, labo, mantag, calool xanuun, cunto xumo, xanuun joogto ah, lafa xanuun, shuban iyo daal badan. midabka maqaarkeeda iyo indhaha waxay isku bedeleen jaallo. Cagaarshowga nooca B waa hurgun ama adaar beerka ku dhaca oo ka imaata virus, taasoo beerka dhaawacda. Cagaarshowga nooca B wuxuu u kala baxaa 2 nooc, mid aan raagin iyo mid raaga oo waara. Dhallaanka iyo caruurta waxaa halis u ah inay helaan infekshanka nooca raaga oo waara. Infekshanka nooca raaga oo waara wuxuu keeni karaa dhibaatooyin sida beer engegay cirrhosis, beer shaqadiisa gabay liver failure, iyo kansarka beerka liver cancer. Fayraska waxaa laga helaa dhiigga iyo dheecaanada jirka sida shahwada iyo candhuufta. Cudurku wuxuu ku faafaa galmada ama cirbad lagu isticmaalo qof fayraska haysta. Waxaa kaloo lagu faafin karaa cudurka habka dhalmada hadday hooyada haysato fayraska. Infekshanka raaga oo waara waxay keeni kartaa in isbitaal la dhigo bukaanka. Waa muhiim in jirka la siiyo waqti uu ku bogsado, iyadoo la siinayo cunto nafaqo leh iyo nasasho badan. Dhallaanka hooyadiisa infekshanka haysato waxaa cudurka looga hortagi karaa in lagu duro cunuga daawo ka hortag ah oona la tallaalo. Markuu dhallaanka dhasho waa in lagu duro irbadda ka hortaga 24 saac gudahooda, waxayna ka hortagi doontaa infekshanka. Waa muhiim in laga hortaga faafidda cudurka, xoogana la saaro nadaafadda. Tallaalka waa ka hortagga cudurka. Ilmaha yari waxaa la tallaalayaa 3 ilaa 4 tallaal muddo 6 ilaa 18 bilood u dhaxaysa. In la tallaalo shaqaalaha daryeelka caafimaadka 3 tallaal muddo 6 bilood gudaheeda.